kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono danjiraha dawladda Ingiriiska u qaabilsan dalka Soomaaliya Mrs Harriet Matthews waxaan wax ka weydiin doonaa inta uu waraysigan socdo arrimo ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo sidoo kale kaalmooyinka ay dawladda Ingiriiska siiso dalka Soomaaliya ku soo dhawow TV-ga STN. Thank you very much. jeclahay inaan wax ka weydiiyo arrimo ku saabsan sababta xilka laga qaadayo xilligan oo adoo muddo soo hayay xilkan bisha January soo socotana lagu dhiibi doono oo qof kale oo ku bedel doono adiga loo dhiibi doono xilkaas. So the reason I'm leaving after 18 months is because we have a policy in our country. Sababtaan u tagayo 18 bilood kadib ayaa waxay tahay in wadankeenu uu leeyahay qorshe siyaasadeed oo ku wajahan shaqada meelaha adag because we're living there permanently and we're away from our families. maxaa yeelay waxaan halkaasi u joognaa si rasmi ah waxaan naga soo fogaanaa qoysaskayaga haddii aan ku noolaan lahayn wadan sida Kenya oo kale ah muddadu waxay ahaan lahayd 3 sano maxaa yeelay qoyskaaga ayaad halkaasi la imaan kartaa marka xaqiiq ahaan inaan 8 bilood ka shaqeeyo Soomaaliya bedelkii aan ka shaqeyn lahaa sanad waxay ku tunaysaa ilaa ay xad inaan inta jeclahay shaqada kadib markaasina aan dalbaday muddo kororsi. As diplomats can bring our families and live there properly, and then we can spend longer because it's really hard to leave after such a short time. intii aad ahayd safiirka dawladda Soomaaliya dawladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya 2015 ilaa iyo hadda muddada inta la eg maxaa ku qabsoomay oo aad isleedahay wadamada Soomaaliya iyo Ingiriiska xiriirkooda wad ku xoojisay? So I think there are 3 or 4 things that really stand out. waxqabadkayga inta aan joogay Soomaaliya waxa ugu muhiimsanaa 3 ilaa 4 waxyaabood waxaad moodaa xilligii aan joogay Soomaaliya inay hareeyeen doorashada iyo geedi socodka siyaasadeed marka aan imaaday 2015 dadka qaarkii ayaa waxay ii sheegeenba inaysan macquul ahayn in doorasho la qabto 2016 marka xaqiiqdii in hadda isla xilliga aan hadlayno inay qabsoomayso doorasho ayaa waxay tahay arin horumar lagu tilmaami karo. Governance really improving, so I see that as a really big positive. And then finally, one of the things that I've really focused on. Arinta kale aan isku taxluujiyay waxay tahay inaan wanaajiyo xiriirka madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobolada. waxaana la arki karaa in calaqaadkooda iyo dawlad wanaagooda uu hagaagayo. And now we have a grouping called the S6 or the Security 6, which are the main donors on security, and we're trying to make sure that we work to xulista xildhibaanada Soomaaliya hadda socota qaybtood waxaa lagu eedeynayaa oo la sheegayaa inay jiraan musuqmaasuq badan oo xildhibaanada lagu soo xulayo dawladda Ingiriiskana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn u taageera Soomaaliya marka maxay kula tahay baa lagu xaqiijin karaa inaanta madaxweynaha doorashada madaxweynaha dhawaan dhici doonta aanay noqon mid la musuqmaasuqo? So corruption is one of the things that I found most frustrating in my time in Somalia. musuqmaasuqa ayaa waxa uu yahay waxa ay qalqalgeliyay inta aan Soomaaliya joogay sida waafaqsan gargaarka iyo taakulada UK waxa inoo degan shuruuc iyo qawaaniin adag oo ku saabsan sida loo isticmaali lahaa lacagaha iyo sida loo dabagali lahaa dalabaadka la sameeyay marka taasi waxay ka dhigan tahay inaan ku kalsoonahay taakulada dhaqaalaha ee aanu isticmaalayno waxa uu gaaraa dadka saxda ah ee lagu talagalay laakiin waxaan qirsanahay inuu jiro dib weyn oo ballaaran markastana waxaanu maqalnaa dacwado musuqmaasuq ku saabsan marka sida aan filayo hawsha u taala dawladda soo socoto ayaa waxay tahay inay diiradda saartaa sida ay awood ku siin lahayd guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa sida ay sare ugu qaadi lahayd daahfurnaanta iyo sida ay wax uga qaban lahaayeen nidaamka maaliyadda iyo maareynta dhaqaalaha ee dawladda hadda waxaa jiray nidaam ay ku hoolan tahay hay'adda lacagta ee IMF kaasi oo loogu magac daray barnaamijka kormeerka ee dhaqaalaha kaasi oo saxaya nidaamka si loo hubiyo in maaliyadda loo maamulo la qoondeeyo loona xisaabiyo kaasi oo ah mid ay UK taageerayso iyadoo u sii marayso bangiga adduunka nidaamka kale aan gacan ka geysan karno
annagoo u sii marayna bangiga adduunka ayaa wuxuu yahay hagaajinta maareynta dhaqaalaha ismaamul goboleedyada si arrintaasi marka la helo ay ugu suurto gasho inay dhaqaale ka helaan dowladda dhexe taasi oo guul abaalmarinteeda leh ah marka uu nidaam wanaagsan jiro marka wadajirka abaalmarinta dhaqanka wanaagsan iyo maareynta nidaamka iyo hanaanka wanaagsan kaasi oo ku saleysan wada xisaabtan rajo intee leeg baad ka qabtaan in doorashada Soomaaliya gaar ahaan ta madaxweynaha ee dhawaan loo ballansan yahay inay qabsoonto ay ku dhacdo xilligeeda iyadoo aan ognahay in dhowr jeer ay doorashooyin dib u dhaceen ma ku kalsoon tihiin xilliga loo ballamay doorashadu inay dhici doonto mise waxaan ku jira walaac ah ama walwal ah in doorashadu ay xilligeeda dib ugu dhacdo There's a really big challenge in Somalia in trying to both make sure the elections take place on time. waxaa jiro caqabado hortaagan doorashada kaasoo ah siduu ku qabsoomi lahaa xilliga loo baahan yahay iyo siduu u noqon lahaa mid xaq ah marka waa isku dheelitirka labadani oo ah sida lagu heli lahaa nidaamka ugu habboonaa ee dhacaya xilliga ugu macquulsan kuwaasoo mararka qaarkood aad ku qasbanaanaysid inaad ka samayso wada xaajoodyo doorashada madaxweynaha ayaa waxaa lagu wadaa inuu qabsoomo muddo isbuuc naga xigo dhab ahaantii way adag tahay inay taasi dhacdo maadaama aan weli yeelanin afhayeenka baarlamanka iyo soo xulashada golaha aqalka hoose You keep the foot on the accelerator to try and keep the process moving quickly. balse muhiimaddu ayaa waxay tahay in laga shaqeeyo dardargelinta nidaamka waqtiga waa gabaabsi mana doonayo inuu nala galo sanadka cusub ee 2017 maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo ay Soomaaliya doonayso in ay qabato kuwaasi oo isugu jira amniga dawladda wanaaga iyo xaaladda aadanimo ee hadda taagan marka haddaanan dawlad la sameynin waxaa dib u dhac ku imaanaya go'aano badan marka waxaa jira degdeg ku aadan doorashada balse weli waxaad ku qasban tahay inaad ka maradhalisid nidaam wanaagsan maadaama aad isla markiiba qasbi karin rajada ayaa waxay tahay in nidaamku uu soo idlaado dabayaaqada sanadkan waxaana intaasi aan ku sugnaanayaa magaalada Muqdisho si aan u eego waxa aan qaban karo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib dhawaan waxaad bilowdeen inaad safaaradda ka furataan Ingiriiska magaalada Muqdisho caasimadda waxaa la isweydiinayaa maxay tahay ahmiyadda inta la eg ee dawladda Ingiriisku ay siinayso Soomaaliya marka maxaad ku sharaxi kartaa ahmiyadda ay ku fadhido Soomaaliya So 1991 was a really tough year for Somalia but also for the UK when we left. sanadkii 1991 Soomaaliya waxay soo martay xilli adag sidoo kale UK way soo martay marka aan ka baxnay wadanka waxaan eegay dukumeentiyada xilligaasi waxayna ahayd xilli murugo leh Soomaaliya waxaan u joognaa sabab dhowr ah waxaa naga dhaxeeya xiriir taariikhi ah balse sidoo kale haddii aad eegtid mudnaanta istiraatiijiga ah in la helo Soomaaliya oo nabad ah oo degan ayaa waxay tahay danta ugu weyn ee UK waxaan isku kaashanaa dhanka la dagaalanka argagixisada ka hortagga burcadbadeedda iyo sidoo kale ka hortagga muhaajirka sharci darrada ah ee dhanka Yurub iyo meelo ka shisheeya waadna aragtay xaaladda naxdinta leh ee ka dhacaysa badda Mediterranean-ka marka anaga dhankeena mudnaashaha istiraatiijiyadeed ayaa waxay tahay inaan dhisno Soomaaliya oo xasiloon si uu noqoto meel laga helo wax walba oo wanaagsan iyo meel ka faa'iideysato goobta istiraatiijiyadeed ee ku taalo ee dhanka dhoofinta kheyraadka So our principal priority is security. waxaad sheegtay in gudaha Soomaaliya aad ammaankii qayb ka qaadanaysaan sugidiisii iyo arrimahaas oo kale waxaan ognahay in ciidamo Ingiriis ka socda ay joogaan magaalada Muqdisho caasimadda marka maxay tahay waxyaalaha ay qabtaan oo ay gudaha Soomaaliya ka qabtaan ma tababaraad ciidamada Soomaaliya siisaan maxaad nooga sheegi kartaa ciidamadaas iyo ujeedooyinka ay u joogaan Soomaaliya So we do have some troops, some British military in Somalia. Soomaaliya way naga joogaan ciidamo militari ah waa tiro yar oo ku dhow boqolaal mararka qaar dadka waxay u maleeyaan inay gaarayaan kumanaan to help the peacekeeping effort and to help the Somali security effort. ciidamadani uma joogaan howl nabad sugid waxaase u joogaan inay caawiyaan dadaalka nabad sugidda halkaasi uma joogaan inay la dagaalamaan al-shabaab balse waxay bixiyaan khibrad si loo sugo amniga meelaha khatarta leh ee Soomaaliya oo kale haddii aan ku sheego tusaalooyinka ku aadan waxay qabtaan waxay bixiyaan talooyin ku aadan qaraxyada
iyo sida goobaha ay la soo darasto halista loo sugi lahaa. Waxaa inoo joogo injineero ka shaqeeya howlaha dhismooyinka iyo sugidda amniga wadooyinka. Waxaa sidoo kale jooga tababarayaal kuwaasi oo tababaro siiya ciidamada qaran ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM howlaha ku aadan sirdoonka sida loola shaqeeyo bulshada. Waxaa sidoo kale jira kuwa kale oo bixiyo talooyin dhanka siyaasadda. Waxaa jira dad badan oo la shaqeeya Midowga Yurub, xoogagga Soomaaliya iyo sidoo kale UN-ta. Marka waxay sahlaan awoodda beddelka ay ka qayb qaadan lahaayeen dagaal toos ah. People working with the EU, with the Somali forces, with the UN as well. But it's more in an enabling role rather than the executive role of fighting themselves. dhawaan wasiir dawlaha arrimaha Afrika iyo bariga dhexe dawladda Ingiriiska waxa uu sheegay oo uu beesha caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo dhisi lahaa ciidamada Soomaaliya. hadalkaas ma jira midda kale maxaa hadii uu jiro maxaa ilaahay hadda ka qabsoomay sidii loo dhisi lahaa ciidamada Soomaaliya. Yeah, so definitely, as I said, if our ambition is to move from AMISOM to a Somali security solution. Sidaan u sheegay horaan, haddii uu hamigeenu yahay inaan ka gudubno nabad sugidda AMISOM oo aan u gudubno xalka amniga Soomaaliya, marka waa inaan taakuladeena in yar aan AMISOM uga gudubnaa kadibna aan ku wareejinaa qaybta amniga ee Soomaaliya. waxaa hubaal ah inaan kordhinay taakulada aan siinay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo booliska Soomaaliya. maxaa yeelay iyaga xitaa way xisaabsan yihiin dhanka amniga. waxaanu arrinkan sameynay anagoo kordhinay gunnada la siiyo ciidamada. waxaan ugu horeyntii aan diiradda saarnay ciidamada dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland anagoo ciidanka siinay lacag. sidoo kale waxaanu bixinay qalab farsamo sida baabuurta aan ugu deeqnay ciidanka qaran ee Soomaaliya, dareeska ciidan, buraashada biyaha iyo kabaha buudka. dhanka tababarada waanu kordhinay. sidoo kale waxaan kordhinay tabarucaadda ciidamada militariga Britain. waagii aan imaanayay waxaa jira hal qof oo kaliya. haddana waxaa inoo jooga koox gaaraysa ilaa iyo nus darsan oo halkaasi ka howlgalaya. waxaa sidoo kale jooga koox tababarada bixiso oo aan ka keennay UK. tusaale ahaan, tababaradan waxay ku wajahnaayeen dhanka isgaarsiinta si loo hubiyo in xarunta taliska ay ula hadlaan meelaha kala gedisan ee gobolada. laakiin waxaa la isweydiin karaa waxa aanu keligeen u qaban weynaa arrintan. waa howl halisteeda leh oo qarash badan ku kaco, waxaana loo baahanayaa dad fara badan iyo kheyraad laxaad leh. marka waa arrin wanaagsan haddii aan isku wada nimaadno oo hawsha wada qabanno bulshada caalamka ahaan. waxaan filayaa inuu jiro tusaale wanaagsan. howlgalla ayaan ka fulinay tababarada, kadibna waxaa nagala wareegay kooxda tababarada kuwaasoo bixiyey aasaaska dayactirka. dhanka kale dowladda Japan ayaa waxay qaybisay qalab. marka kuwani dhammaantood haddii ay mar wada shaqayn karaan oo ay wada jaan qaadi karaan, waxay samayn karaan arrin fiican. arrinku ma ahan in la bixiyo tababarada uu bixinayo kan kale iyo in la bixiyo kuwa iskhilaafayo. muhiimaddu ayaa waxay tahay in la hubiyo in bulshada caalamka ay ku shaqayso hadaf mideysan kaasoo gaarsiinaya Soomaaliya meel weyn. dawladda Soomaaliya waxaa saaran muddo dheer hadeer cunaqabatayn dhanka hubka ah. dhinaca kale waxaa ku baaqdeen in ciidamada Soomaaliya la tababaro oo si looga kaaftamo AMISOM Soomaalidu ayagu ammaankooda iyo nabadgelyadooda xaqiijiyaan. sidee la isu waafajin karaa Soomaaliya cunaqabatayn saaran tahay dhinaca kalena ku baaqaysan in ciidamadii kor loo qaado? So I get a lot of people talking to me about the sanctions on Somalia. waxaa jira dad badan oo igala hadlaya cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saaran. waxayna dhahaan waa mid cadaalad darro ah, iyagoo ku sheegaya in ciidamada iyo nabad sugidda ay ka hortagayso waxa ay qaban lahaayeen. ugu horeyn, cunaqabataynta kuma wajahna dawladda. marka waxaa jira nidaam ay dawladda ku soo gashan karto hubka, balse marka ay sameynayso ayaa waxay u baahan tahay inay raacdo sharci xafiiseed adag iyadoo caddaynaysa waxa ay soo dhoofinayso, sababtay u soo dhoofisanayso iyo halka loo wado. waxaan filayaa arrintan inay u fiican tahay waddan Soomaaliya oo kale. maxaa yeelay haddii aad ogolaatid inuu soo galo hub aan sharciyeysnayn, anagoo weliba ka soo hadalnay musuqmaasuqa, waxa uu gacanta u geli karaa dadka kale sida Al-Shabaab ama kooxo kale oo argagixiso ah. marka ma ahan in loo qaato in cunaqabataynta ay ka joojinayso dawladda Soomaaliya in aanan soo gashan karin hubka ay u baahan tahay, laakiin waxay tahay in qof kasta oo iskala soo geli karin iyadoo loo raacayo sharci adag. hadda waxay dawladda UK ku howlan tahay ayaa waxay tahay maalgelinta barnaamijka maareynta ee hubka, kaasi oo waxqabadkiisa uu noqon doono calaamadeynta hubka soo galayo oo idil si loo dabagalo iyo weliba si loo maamulo loona isticmaalo. tani waa muhiim maadaama ay fududeynayso wada xisaabtanka hubkaasi oo dawladda ugu fadhiyo kharash badan.
kaasi oo isugu jira kuwa tabarucayaal ay bixiyeen iyo kuwa iyadu soo iibsatay. Arrinka kale ayaa wuxuu yahay in sharcigeena oo aanan ogolaanaynin inaan bixinno hubka dilaaga ah. Taasi ayaa waxaan uga hadalnay bixinta baabuurta, kabaha buudka iyo qalab kale. Dowladda UK ma bixiso hub marka ma arki waxa ay dowladda Soomaaliya u la imaan laadahay hub oo ay iyadu leedahay iyadoo raacaysa nidaam sharciga. Provide those weapons subject to having proper mechanisms in place. dalka Ingiriiska wuxuu qabanqaabiyay dhowr shir oo Soomaaliya deeq loogu ururinayo. Dowladda Soomaaliya waxay sheegaysaa in deeqahaas ay wax ka soo gaaraan. Beesha caalamka gaar ahaan dowladdaadu deeqaha ay ugu deeqdo Soomaaliya maxaa sidii la rabay loogu gacan gelin lahayd oo loogu dhiibi lahayd si hawlaha ay markaa u baahan yihiin ay ugu fududeeyaan. So there were some really big meetings. Waxaa jiray shirar waaweyn iyo kulamo lagu sameeyay ballanqaadyo intii u dhaxaysay 2012 iyo 2013. Sidoo kale aniga waan maqlay eedeyntaasi oo kale oo ay leeyihiin bulshada caalamka waxay ballanqaaday lacag mana aysan soo bixin. Halka qaarna ay leeyihiin lacagta waa la qaaday laakiin maynan gaarin dadka loogu talagalay inay gaarto. Aniga waxaa kaliya kaaga warrami karaa tabarucaadka dowladda UK maxaa yeelay waanu daawacnay si dadka ay u arkaan lacagta oo ay bixisay. Waanu bixinay wax allaale wixii naga go'naa inaan Soomaaliya ku tabarucno iyo xaqiiqdii in kale oo ka badan. Waxaa jira lacag kale oo gaar ah oo badan sida dhanka waxbarashada taasi oo ay ka faa'iideysteen milyuumaad taasi oo aanan khuseynin barnaamijka laba geesoodka. Waxaan filayaa in marmar ay dhacdo shaki ku saabsan halka ay lacagta ku dambeyso. Jawiga amniga owgii Soomaaliya waa meel ay qaali tahay in laga howlgalo waxayna ka qaalisan tahay wadamada kale. Marka tani waa dadaal lagu wanaajinayo xaaladda amni ee wadanka Soomaaliya si aadan ugu baahanin inaad lacag ugu bixinin kambaniyada ammaanka kuwaasi ay ku baxdo lacagta inteeda badan. Marka loo eego maalgelinta UK in badan oo taakuladeena ayaa waxay ku baxdaa dhismaha macaahidda, dhismaha awoodda. Marka ma aha dhismo muuqdo oo dhulka aad ku arki kartid. Ma arki kartid isbitaal dhisan. Marka waxaadan arki karin rug caafimaad laakiin waxaad arki kartaa nidaam caafimaad. Dhakhaatiir badan oo tababaran. Waxaana fiican in la kala qaado labadan arrin. Shaki la'aan Soomaaliya waxay u baahan tahay taakulo dheeri ah. Waxaan filayaa sanadka 2017 in mar kale ay UK diyaar u tahay sidii ay isugu keeni lahayd iskaashato si ay u sameeyaan ballanqaadyo xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba si heer looga gaaro mudnaanta Soomaaliya beddelka la eegayo danaha ay ku lahaan karaan wadamo kale. The individual niche issues or interests that other countries have. Dowladda Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR waxay isku afgarteen in qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dadaab dib loogu celiyo dalka Soomaaliya. Ma kula tahay inay la joogo xilligii ku habboonaa in dadkaas dib loo celiyo? Mase jirtaa qorshe dowladda u degan oo dadkaas dib loo celinayo ay gacan ku siinayso inay mar labaad dhulkoodii ay dib ugu noqdaan oo dhulkoodii ay ku laabtaan? So I think the tripartite agreement has been a really important element in managing refugees and making shirarka saddex geesoodka ayaa wuxuu yahay mid muhiimad leh si loo hubiyo in qaxootiga si wanaagsan arrimahooda loo maamulo si wanaagsan oo sharaf ay ku dheehan tahayna loola dhaqmo. The Kenyan government's announcement that they're going to have another delay before the closure of Dadaab. Waa arin yar adag balse waxaan ku faraxsanahay arinta Kenya ee ku dhawaaqday oo ay dib ugu dhigayso xiritaanka xeryaha. Waana ku sii faraxsanahay sheegitaanka ay sheegeen in ay dhowrayaan qawaaniinta caalamiga oo ay ku sheegeen dib u noqoshada ay noqonayso mid ikhtiyaar ah oo bini'aadanimo ku jirto. Waa arin ku qotonta siyaasad. Way ku adag tahay Kenya siyaasad ahaan inay hoysiiso tiro badan oo intaasi la eg. Dhanka kalena Soomaaliya waxay u noqonaysaa faa'iido hibeed oo ay leedahay. Marka waxaan filayaa inay jiraan dad ku nool Dadaab oo diyaar u ah inay si iskood ugu noqdaan Soomaaliya. Waana arin fiican oo la doonayo in lagu taageero si wanaagsanna loo fuliyo. Marka waxaa jirta in Soomaaliya awoodeeda ay hooseyso. waxaana adkaanaya in qof kasta si qasab ah loogu celiyo taasi oo culays weyn ku ah Soomaaliya amnigana wax u dhimi karta kadibna fashili karta dawladda. UK waxay taakulo u fidinaysaa UNHCR-ta Kenya iyo tan Soomaaliya si ay u la yimaadaan qorshe quman oo ay dib u noqon karaan. Waxaana qaxootiga ugu deeqnay kaarar ay ku qaadan karaan raashinka. Waxaan sidoo kale madaxweyne Madoobe kala hadalnay nooca ay tahay taakulada iyo kaabayaasha u baahan yahay si qaxootiga dib loogu soo celiyo. Waxaa sidoo kale jira
dad waddanka gudihiisa ku barakacay kuwaasoo iyaguna u baahan taakula taasi oo la mid ah si ay ugu laabtaan meelihii ay kala yimaadeen oo ay dareemaan badbaado amaba ay deegaan rasmi ah u noqoto meesha cusub oo ay degaan waa caqabad weyn haddii qaxootiga cusub lagu biiriyo kuwa barakacayaasha ah waxay kor u dhaafaysaa in ka badan 2 milyan taasi oo ah boqoley badan oo ku wajahan dalka Soomaaliya. You have over 2 million people, and that's a large percentage of the Somali population that really needs support. dhawaan dawladda UK waxay u dirtay xeebaha Yemen iyo Soomaaliya gaar ahaan meesha loo yaqaan Bab al-Mandab markab weyn oo dagaal oo kamid ah maraakiibta ugu weyn waddanka Ingiriiska dad badan waxay iska weydiiyeen su'aalo sababta xilligan markabkan loogu soo diray dhulkaas oo xasaasi ah ma burcadbadeedii oo aad kula dagaalameyseen badda Soomaaliya baa wali hawshiisa ay ku jirtaan mise waa arrin ku saabsan dalka Yemen iyo xuutiyiinta iyo arrimaha siyaasadeed ee dagaalada ka socda waddanka Yemen. There's a EU mission in Somalia. Waxaa jira howlgalo ee EU-da leedahay oo ku sameyso Soomaaliya oo lagu magacaabo Atlanta kaasi oo xaruntiisa tahay UK. Ulajeedada howlgalkiisana waa la dagaalanka burcadbadeedda. waxaana geynay ciidamada badda si ay roonto ugu sameeyaan xeebaha Soomaaliya iyagoo hoos imaanaya Atlanta. marka hadafkoodu waa burcadbadeedda taasina waa mas'uuliyadooda. sidoo kale waxaa jira tallaabooyin kale oo markabka la tacaalayo. waxa uu ku dadaalaa in burcadbadeedda aynan dib u soo noolaanin. waxaana ku dhiiranahay khatarta ay leedahay tahriibinta hubka iyo tahriibinta dadka ee dhanka Yemen. waxaa jira wax ay shardi tahay inaan isha ku hayno. waxaa sii jiray cunqabateynta hubka taasi oo ku sahlayso inaad la tacaasho hubka la soo gelinayo Soomaaliya. marka ulajeedadu markabkeena badda Soomaaliya ee la howlgala Atlanta waa la tacaalida iyo ka hortagga burcadbadeedda. dad badan waxay su'aalo ka qabaan doorka Ingiriisku uu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya. dad badan waxay leeyihiin dawladda Ingiriisku waxa laga yaabaa inay aqoonsato Somaliland inay tahay dal ka madax bannaan Soomaalida inta kale. maxay tahay siyaasadda u degan dawladdaada gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee ku saabsan midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed? So there are always rumors about what the UK is doing or plans to do. markasta waxaa jira ku turokoteen hareynaysa waxa ay UK qorsheynayso. waxaan kuu sheegi karaa ayaa waxa uu yahay in marnaba aysan isbedelin siyaasadda UK ee ku wajahan Soomaaliya iyo Somaliland. mustaqbalkooda waxa uu ku jiraa gacmaha Soomaalida. waxaana doonayaa cid kasta ka hor inay iyagu xaaltamaan. muhiimaddu ayaa waxay tahay in Muqdisho iyo Hargeysa ay wada xaajoodaan si dhib iyo amni darro aynan u dilaacin iyo weliba ganacsiga xuduudana u xirmin. fursado badan ayaa jiro balse waxa idin xaqiijinaa inaysan marnaba isbedelin siyaasadda UK. A loss in trade across the border because there are so many opportunities. But I assure you there is no change in UK policy. marka doorashada Soomaaliya dhawaan dhacdo oo dawlad cusub la soo doorto madaxweyne cusub la doorto dawladda Ingiriiska oo adiga hadda aamintisid inkastoo xilka dhawaan laga wareejin doono sidee u aragtaa mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono? So I'm going to be in Somalia until the last day of December. waxaan Soomaaliya joogayaa ilaa iyo maalinta u dambaysa ee December. waxaan ku hanweynahay marka aan tagayo inaan haysano madaxweyne cusub. waxaan runtii ku farxay inay dhicin wax rabshado ah. taasina waxay ku tusinaysaa inay Soomaalida qaangaartay. waxaan ku rajaynahay in guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka uu muujinayo dadaal. waxaan ogahay inuu ku guda jiro ka fiirsashada dacwooyin horyaalo. waxaan filayaa inuu Soomaaliya u meeleynayo asaaska dimuqraadiyadeed. waxaan dhanka wanaagsan ka arkaa in Soomaaliya uu ku badan yahay kheyraadka aadanaha. waxa ay leedahay horumar wanaagsan marka loo eego istiraatiijiga ee ku taalo iyo weliba kheyraadka kale oo ay haysato. waxaan aaminsanahay haddii ay Soomaalida danahooda gaarka ay ka hormariyaan tan Soomaaliya runtii mustaqbalka Soomaaliya wuxuu noqonayaa mid weyn oo ballaaran. And I'm confident that if people put Somalia first rather than their own interests or their regional or clan interests, then really the future is a great one for Somalia. Thank you very much. So thank you very much. It's been a real pleasure. Thank you. daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa waraysigii aan la yeelanay danjiraha dawladda Ingiriiska u qaabilsan dalka Soomaaliya Harriet Mathias oo aan kula kulanay magaalada Nairobi. intaanu mar labaad dib u kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.